السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته وسلامته دمانتين halkan waxaa ka hadlaya waa saaxiibkii Axmed Cabdullaahi akhyaarta waxaan rabay inaan la wadaago runtii video aad iyo aad u muhiim ah oo ka hadlaya qaabka Soomaaliyeedna maanta loo iskaam gareynayo arrintii iskaamka oo sii xumaatay wala soconaa hortii dad badan la iskaam gareeyay oo iskaamku wax Soomaalida ku cusub ma aha oo marar badan baa la iskaam gareeyay laakiin hadda nooc khatar oo cusub baa soo baxay runtii noocyada hore ka duwan noocyada hore way garanaynaa mar lagu iskaam gareeyo dadka si chain style chain main mar maaragtay la yiraahdo investment dadka sameeya khaasatan dadka cryptocurrency-ga iyo yaqaana oo تلون شري investment سماه USDT صادر صو أما بيتكوين صادر صو كدينا العقد بدها ليسا أرنتا إسكام كاسي مركا وحكوش قين شري دت كي يقانا كريبتو كارنسيجا معركة السوقية داس كل حشرة أي إسكام كاسو سامين شري كانت أرنتا سوي كسو قدبتي أرنتا صاد وحي مرة يسا دت كي إسكا عادي أها ويوين كي قريها تشوقي إن ما إسكام ريسو صاد عن وإلا عقتي كقدر سنة يان ساد يسهل EVC بلاس إذا هالكن سنة كوار كي سنة دا إسكام مركني ورقدنا وصوغ رأي قبل ولا شيء نبيله سو ذاكتي قبل داس بقول دور بمركه هرا لقى قاتي سيدا maartay ka akhriyo kareysaan meesha ninka tuugi wuxuu ku yiri investment samee $100 soo dirso kadibna wuxuu ku yiri waxaad helaysaa 3200 after 24 hours 24 saacadood kadib waxaad heshaa buu yiri 3200 boqolna waa soo dirsanaysaa marka runtii de aqliga caadiga ah uu diidaya maartay 100 soo dirso muddo 24 saacadood gudahooda waxaad ku heshaa 3000 maartay 200 arrin macquul ma ah laakiin si haddana dadkeena haddana had iyo jeer waa intaas way ku dhacdaa oo maartay هذه الشيء إسكام كاسي وكشغية مركا أرنتا اللي يابكلي وحي تهي إن ولاشين لو قد عي مارك ساد أو اللي عيت الساد كدرتي يضو مركا كدرتي تاج مركا إسكام مركا كان إذا كم موضع مجلس هذا محمود عبد الله وقرنت هاي صور كنك عدو سارين وبنتي نكاسو وحشوجا كينيا سكرين شوت كان كلا كوارك دونتان سكرين شوت كانوا مركو وشيء يهبك اللي عيته وصدر يسوع ده كان إكتو وحوش رحيا هبكي أي اللي عيته وصدر اللحيد مركا واضركتان وحول بريس حديك سيدي حديك باس ويركا قلي بيقول مارت دبنا هاش لابا تشوس بيقول 9 أو تاج كدبنا وحول بوت نمبر كيس واكن مركا نمبر كيس نمبر كينيا أنا وياه مجيء سنة أبشارة أحمد بوتشا يا وقرن ودن كوا كينيا العيت الله دريا مركا إسكامر كان كينيو شوجا وحلقة يا باينو سومالي هي أما سومالي لا شقين يسوع أدو حنون كرنا وإسكامر دتك سومالي ذا الدراسية وصيفي عن ولا صعدة ومارت هابك العيت سوق درا نصيفي عن وق طب حضرك يساعد هابك وسو ديار صديق حضرك يساعد ماركتي information ka gabadha uu siiyay gabadhu may garanaynin sa loo diro isagii baa stepkii u sheegay marka touch bay ugu dirtay lacagta ninka magaciisa iyo numberkiisa waka hadaynu eegno screenshot kan kale screenshot kan waad aragtaan wuxuu ku yiri marka lacagtaadu waa diyaar 3200 kiin waxa loo baahan yahay buu yiri waxa loo yaqaan license fee dadalkan eegto oo ma aragtay $270 ah marka waa $370 baa gabadha laga dhacay 270 kiina waa u dirtay ninkaasi marka sidaas uu lacagtii ka qaatay gabadhina saas ugu dhamaatay halkan waa markii lacagta diraysay gabadhu ay soo dirtay walaasheen waad u jeedaan inay 270kii ay u dirtay ninka magacaas xun leh Boshora Abashora Ahmed Bocha oo numberkiisu yahay 25475843 oo taaj dabcan marka iskaamarkaasu sidaas uu gabadhaas 370 kaas uu kaga dhacay waxaan naxdin leeyahay igu tiri gabadhaasi waxay ahayd biilkii bay ahayd reerka gabadhu hooyay ahayd sida ka muuqatay runtii arrintaas aad iyo aad bay taabatay tiyadii hore de waxa la dhici jiray oo moogteeda soo shaqo tagay oo dhalinyaro ah oo ma garanaysa suuqyada online ka shaqeysta laakiin hadda hooyooyinkii baa loo dhacay dadkii guryaha joogay baa loo dhacay biilkii ciyaalka iyo caanihii ciyaalka maaragtay scammeriska ay u soo dhigteen iyagoo markaa ku dhacaya nidaamkaas sahlan ee qof kastaaba maaragtay uu helayo eezaadka iyo sahalka iyo EVC pluska waayadii hore dadka cryptocurrency-ga la macaamilun baa la dhici jiray dadkaasuna way iska tira yaraayeen laakiin hadda waa khatar weyn runtii in islaamihii suuqa caanaha ku gadayay iyo tamaandhada in la yiraahdo lacag baad helaysaan soo daaya oo sidaas lagu dhaco ay arrintu maraysaa arrintu meel khatar ay maraysaa waxa loo baahan yahay runtii in wacyigelin weyn la sameeyo anigu kulli waxaan ahay dadka runtii aad ka wacyigeliya markhaati baa liiga yahay aniga iyo ragga kale ee maartay macallimiinta ahiba uma naan yaraysan laakiin haddana dee waad aragtaan oo moogtahay maalin kasta qof baa la iskaam garaynaya maalin kasta qof baa kula soo xiriiraya koranaya qof baa lacag iga dhacay marka laakiin se kama daalayno wana sababta videogan hadda aan u duubayo haddaan intaa markaa kaga imaado gabadhaas walaasheen ah ee maaragtay la dhac ninku leeyahay channel buu leeyahay gabadhu ay linkiga ay soo dirtay channelka waynu arki doonaa channelkiisa 5,000 qof baa ku jira waxa kale oo ku jira gabdho Soomaaliyeed oo hadlaya oo le maaragtay lacag baanu ka helnay wana waxyaabaha gabadha si khiyaameeyay ee runtii ay ku aamintay in waxaan sax yihiin sayid sheegayso marka de qof Soomaaliya oo oranaya maaragtay lacag baan meesha ka helay aad ku dhaxaragto marka channelkan uu tagi doonaa channelkiisana bal weynu eegi doonaa waxa ku jira saa u jeedaan bahalkan waa channelkiisii waxa la yiraahdaa Coinages Bitcoins baa la yiraahdaa saa ugu qoran waad aragtaan xitaa dadka wuxuu ku dhacayaa
waafi baalkan hadda qof wuxuu ka dhigayaa inuu qof lacag siiyey waa beenaale weeye dee waa tuug waad garanaysaan scamersku say u dhaqmaan waxyaabahan waad aragtaan soo dhigay meesha waad aragtaan wuxuu ku leeyahay $100 bixi waxaad helaysaa 3,200 baad helaysaa 24 saacadood gudahood yani waa cajiib marka channelkiisa waad aragtaan 5,200 baa ku jira waxyaabahaas dadka uu ku khaldaya baa ka buuxa halka dusha waxa saaran iyaduna gabadh Soomaaliyeed hadda waa idin daari doonaa bal gabadhan dhageysta. طبعا gabadhan English buu ku hadal way naqaanaa scamersku waxa soo kale way sameeyaan marka iyada hadda de scamers ma aha oo iyada qudheedu victims ka mid tahay dadka la dhacay bay dabcan ka mid tahay waan dareemayaan wax badan baan ku soo jiray wax badan baan u joogaysaa dadka scamersku wax u dhacaan scamersku marka dadka lacagta hore ka qaataan waxay ku amraan inay u soo duubaan maaragtay video ay ugu mahad celinayaan iyagoo marka uga dan leh inay maaragtay advertisement ay dadka ku soo dabtaan marka gabadhani victims ka mid tahay halka kale qudheeda gabadh baa ku jirta iyaduna Soomaaliyeed way tira badan yihiin runtii wax aynu soo koobi karna ma dad badan buu ka duubtay marka ninka tuuga ah walaalayaal khaasatan waxaan la hadlayaa asxaabtayda kiribtada gruubyadeenna ku jira waaweyn runtii ilaa 20,000 oo qof baynu ku dhownay community-geenani groupkan aynu xidhno channelkan horta waxa talaabada ugu horeysa inuu qaadayna waxaan doonayaa inay noqoto channelkan inaynu report siino insha Allah taala oo aynu hawada ka saarno dabcan linkigiisa waan idin soo dhigayaa oo videogan ayaan insha Allah hadii la yiraahdo aan soo raacin doonaa waxaan doonayaa qof kastaaba inuu galo kadibna report siiyo si hawada looga saaro markuu waraysa channelkan mar labaadkana walaalaha Kenya ku nool ninka tuuga ah ee isticmaalaya Taj hadii ay suurtagal tahay in lagu dacweyn karo xawaalada Taj oo ninkaas la daba geli karo oo la soo qaban karo sababtu waxa weeye Taj marka qofku ka furanayo account-ka dabcan de document bay ka qaadaa passport baa laga qaadaa iyo document kale marka way sameyn karaan way daba geli karaan way soo qaban karaan tuugaas weyn ee dadka Soomaaliyeed dhacay dad badan buu ninkani dhacay dad badan marka walaalaha Kenya jooga iyaguna haday arintaas maaragtay wax ka geysan karaan iyaguna de way nala soo xiriirayaan insha Allah marka insha Allah saaynu sameeyno aynu report gareyno wadana aynu marka hore channelka ka saarno si maaragtay dadka kale ee masaakiinta ah laga yaabo inuu ninkaas u dhici lahaa inuu badbaadino aad iyo aad baad u maasantihiin videogana hal faafiyo iska markana dadka looga digo walaalaheena assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh